runtii aad iyo aad ayaan rabaa inaan uga mahadceliyo ummadda Garowe iyo Puntland iyo madaxweynahooda iyo dowladooda sida wanaagsan oo wadatinimada leh ee Soomaalinimada ku jirto ay aniga iyo wafdigeyga noo soo dhaweeyeen. runtii waxay ahayd wax aad iyo aad loogu farxo oo mar walbaba aan ka filayay dadka reer Puntland ee nabadda jecel inay ii soo dhaweeyaan qof walba oo dowladda federaalka ka socda. waxaan ogahay saacado badan inay banaanka taagnaayeen dad aad u far badan ay ahaayeen anigoo og magaaladan Garowe dadka degan inay yihiin dad aad iyo aad u far badan oo populationka Garowe aad iyo aad u badan yahay dad aad u far badan ay soo baxeen runtii waxaan iloobi kara ma aha runtii qulubteeda iyo qulubtoodana waa isku xiran tahay. waa jeclaan lahaa inaan u soo dego oo aan salaam sidii aan hore u ahaan jirayba maxaa yeelay waxaan jeclahay markaan arko runtii dadka banaanka taagan oo quraxda taagan inaan la qaybsado oo aan u soo dego oo runtii aan salaamo laakiin ma dhicin fursaddaa diiday laakiin insha Allah waqti kale hadduu eebbe yiraahdo waxaan rajeynayaa inaan dadka salaamo oo aan u soo dego oo aan marxabeeyo insha Allah. dad aad u badan baad qaabishay intaad joogtay Garowe maxay ka wada hadasheen gaar ahaan shirkii aad la yeelatay sidoo kale dowlad goboleedyada madaxda socota. runtii waxay ii ahayd fursad waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Saciid Deni ayaan uga mahadcelinayaa oo runtii ka shaqeeyay in aan wada kulanno madaxda dowlad goboleedyada oo runtii muddo aynan is arag. shirkeennii isugu keen dambeeyay wuxuu ahaa kii Baydhabo oo qorshuhu ahaa inaan ku ballanay inaan shirka kan noogu xiga markaas Garowe ama meelo kale ku qabanno. alxamdulilah inaan uga faa'iidaysano caleemasaarkan inaan kulanno oo aan ka wada hadalno runtii xaaladda dalka guud ahaan iyo sidaan xal ugu wada raadin lahayn shacabkeenna runtii u dhibaataysan ama u baahan si alla sidii dowladdu ay gacan uga geysan lahayd runtii duruufahooda adag. waxaan ku ballannay insha Allah bisha Maarso dhexdhexaadkeeda inaan halkan aan ku kulanno si aan horay ugu sii wadno barnaamijyadii ama qorshooyinkii aan ka wada hadlaynay si aan wada shaqaynteena u xoojino xiriirkeena u adkeenno dadka iyo dalkana aan ugu qabanno insha Allah.